Assalaamu calaykum. Kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal. Ku soo dhawaada maalin kale iyo taxanaheennii. Ugu horreyn waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto si uu dad badan u gaadho. Channelka subscribe saar oo saaxiib nala noqo. Haddii aanad horey noola socon, waa ay kugu adkaan doontaa inaad fahamto qisada. Sidaas daraaddeed waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad soo daawato qaybihii ka horreeyay. Waxaanad ka heli karaysaa qaybta hoose ee description-ka. Ku soo dhawow qaybta 13aad ee qisada curad. Horta gabadha yar ma ahaan mid wax dhibaato ah gaarsiinaysa isaga, laakiin waa mid la noolaanaysa ilaa muddo. Hadda waxay la degan tahay qolkiisa, aad bayna ugu dhiban tahay inay la noolaato isaga, waayo inta badan ma hesho firaaqo ay isugu muujiso ama ay isku tusto isaga. Iyadu waxay u baahan tahay mugdiga, laakiin isaga wuxuu had iyo jeer rabaa iftiinka. Sidaa awgeed mararka qaar waxay isku dayaysaa inay qolka mugdi ka dhigto, si marka uu soo galo uu u arko iyada. Laakiin isaga cabsi daran oo uu ka qaaday mugdiga awgiis, mar walba oo qolkiisu mugdi yahay wuxuu isaga laabtaa qolalka iftiinka leh. Taas ayaa ka mid ah caqabadaha labadooda kala xanibay. Waxaa sidaa weli ku waramaya xikaas oo ah ninka isoo raaciyay gabadha noloshayda qaladay. Warbalaayo la tagtayda noo sheeg ma jinbaa mise waa insi? Ayaan mar kale ku celiyay anigoo cadho la dharbaaxaya miiska dushiisa. Weliba dhinaca kale aan taliyihii iyo aamusinaya u muujinayo inaan u baahanahay ogaalka iyo fahamka gabadhan yar ay wareerisay. Taliyihii oo ii garaabaya ayaa sii xoojiyay weydiintaydii oo yiri, waa runtii bal noo sharax gabadhan waxa ay tahay. Horta waxaan idin fahamsiinayaa falka la isku raacay waa inuu ninkan helo xisdhow. Marka waxaa muhiim ah si loo fuliyo arrinkaas in la helo sawir ninkan maskaxdiisa mar walba ka guuxa, ama muuqaal marka uu arko uu cabsado ama cararo. Si taas loo fuliyo waxaa lagu qasban yahay in la isku helo dhowr arrimood. 1. Ninka oo hurdo suuxsan ama sarqaansan, calashaan maqan yahay badi dareenkiisa. 2. Xilli mugdi ama habeen ah. 3. Maadaama lagu talaalayo maskaxdiisa, waa in aan anigu helo meel ay isagu ka gaari karto gacantayda, weliba madaxa. Sidaana waa sababta aan u soo safray ama saqdhexa ugu imid qolkiisa. Intaas markuu xikaas yiri, anigu wax shaki ah marna igama soo galin arrinkan, laakiin raggii kale waxay u muuqdeen kuwa aanay weli sheekadu ka dhaadhicin. Aniga iyo xikaas ayay markaan maraysaa qisadaydan. Su'aal iyo jawaab ayaa na dhex maraysa. Qof kasta oo na maqlaya wuxuu noo turjuman karaa laba ruux oo ka sheekaysanaya wax qiyaali ama been ay isugu jiibinayaan. Sideedaba noloshu qofba taariikh iyo dhacdo gooni ah ayay siisaa. Mararka qaarna fahamka dadku wuu kala duwanaadaa. Laakiin waxaa xaqiiqo ah tani ma ahan sheeko ama riwaayad dad lagu maaweelinayo, ee waa qiso dhab ah oo noloshayda qayb ka mid ah. Adeerow, adeerna iima tihide wax yahow shaydaanka maala. Oday xikaasow, waxaad ii sheegtaa gabadhan yarta ah dab ha ku dhacdo Ilaahay idamkiye, maxay ahayd? Aniga ayaa haddana weydiintaas ku laabtay. Waadna i colaadinaysaa haddana inaan wax kuu sheegaad rabtaa. Cajiib. Taliya waa kaas aadanaha aan kuu sheegayay inuu yahay maagi socota. Haa, waa runtiis wiilka, ee annaga oo dhan baa kaa sugayna waxay tahay gabadhan yare. Noo sharax. Taliyihii ayaa ugu jawaabay. Xikaas wuxuu si cad iigu yidhi, gabadhu waa jin. Markii aan waayay jinkii waaweynaaye hawshan ila qaban lahaa, ayaa waxaa la isoo siiyey gabadhan yar oo la soo qasbay. Xilli habeen ah ayaan soo kaxeeyey. Ninkan oo hurdo baan u nimid, kadibna waxaan gacantayda saaray madaxiisa. Waxaana ka shaqeeyay sidaan gabadhan ku dejin lahaa gudaha madaxiisa, laakiin waan awoodi waayay. Waxaanse ku guulaystay markii dambe inaan la dejiyo gabadha yar. Ma aqaano habeenkaas ninkan wuxuu sameeyey, laakiin aniga hawshayda fashil bay ku dhawaatay. Waxaanse u baxsaday kursi ay maamada iga soo siisay qolkeeda oo aan gabadha dushiisa ku soo reebay. Inta uu kursigaas yaallo xaafadda dhexdeeda, gabadhaas yarna way joogaysaa guriga. Hadday ka hesho guriga ama nolosha ninkanna, meel ugama socoto, waayo waa jin dhagool ah oo reebaadiye ah. Horta eegmada dhagoolka way lahayd. Waxaan xasuustaa marka ay maalinkii isoo eegaysay sida ay indhaha igu soo gubaysay gabadhan. Aniga ayaa intaas niyadda iska iri. Mucjisada adduunyadu badanaa. Mararka qaar dadka wax falaya ama adeegsada jinka waxay fuliyaan hawl hadhow ay ku adkaato inay ku xakameeyaan halkii ay la rabeen. Haddaba armay qisadayda taas la mid noqotaa. Waa walaaca cusub ee durba isoo food saaray. Su'aashaydii iigu muhiimsanayd ayaan weydiiyey oo ahayd, anigu ma caafimaad qabaa mise waan waalanahay? Maya, ma caafimaad qabtid, mana waalnid ee xisdhow unbaa ku haya. Ayuu igu yiri xikaas, war waan caafimaad qabaa, xisdhow iyo waalidhowba adiga ayay ku hayaani. Wax Ilaah yaqaana noo sheeg. Aniga oo aad u qaylinaya ayaan intaas ku iri xikaas. Laakiin isagu wuxuu igu yiri, kaliya ma ahaan ee hawlwelin. Xisdhowga familka qaar baa kula qaba, oo laga yaabaa sida wax been ah ay adiga isugu kaa sawirayaan, si la mid ah inay iyaguna u arkaan wax aan sax ahayn mararka qaar. Walaalkay Khalid oo aan marnaba hadlin intay sheekadu socotay, ayaa markaas la soo booday. Oo maxaad ku samaysay qoyska oo dhan? Inta uusan ka jawaabin su'aashaas,
waxaa soo galay taliyaha oo yidhi bal intaas noogu sima hadalka. duhur waa naga tegay, anna shaqo adag ayaan leeyahay. marka berri xilligan oo kale isukaaya keena. halkaas waxaa ku hakaday sheekadii xiisaha lahayd oo aan ka helnay xogo badan. sida ku cad qisadayda uma baahna wax cusub ee keli ah waxay dhammaan kartaa marka la helo jawaabaha waxweydiimihii ku xusnaa bilowgeeda, sidoo kalena micno loo helo dhacdooyinkii ama kaaga lahaayee ku xeernaa isbebedeladii noloshayda. markaan wax yar ka soo dhaqaaqnay saldhigga ayaan walaalkii Khaalid weydiiyey ninkan siduu halkan ku yimid. micnaha ayaa soo xidhay oo keenay saldhigga. Khaalid wuxuu ii sheegay in ninkan uu muddoba xidhan yahay oo walaalkay Maxamuud uu soo qabtay marka uu helay xogta sheekadan, laakiin aniga la iga qarinayay. wax kasta si dhow ayaan u ogaanayaa. waxaa isfurfurtay qisadayda, laakiin waxaan dhaar ku maray inaanan marna seexan qolkayga ilaa uu Khaalid ii yidhi anigaa kula soo degaya walaal ee cabsan. markaan tagnay xaafadda oo aan xilligaas gaariga ka degayno ayaan haddana Khaalid mar kale su'aalay saddexda haweenka ah walaal ma wada fahmin. Safiya Maxamuud sadohdiisa ah iyo maamada waan fahmay, ee tan kale ee yar ee maamooyinka la socotay waa tuma. indhahaygu xilligaas waxay hayaan Sahra oo aan isleeyahay hadday iyada noqoto dib oo dambe weligaa ha u salaamin. laakiin Khaalid wuxuu ii sheegay magac ah Faadumo. horay kama garan qofkan Faadumo. Khaalid wuu ii sahlay oo wuxuu ii raaciyay dumaashideen ama Maxamuud xaaskiisa. ma malaynayo heerka ay gaadhay farxadda iyo kalsoonida aan gudaha ka dareemay, waayo haddii ay Sahra noqon lahayd qofkan waxaa iga guuri lahayd waxa la yidhaahdo kalsoonida oo dhan. haddana wax yar kadib waxaan garwaaqsaday hadalkii adeer ee ahaa waxaa dhibaatadaada ka dambeeyay 3 ruux oo aadan rumaysan karin. safarka maamada waa sax in walaalkeed uu xanuunsanaa oo waxaa la soo sheegay isla maalinkan saldhigga ka soo laabanay geeridiisa. haddaba maalmo kadib way nagu soo wajahan tahay, laakiin Faadumo carruurteedii iyo hooyadeed Safiya waxay isku soo xidhan guriga, wayna diideen inay xataa annaga naga furaan si aan xaalka u dejinno. Maxamuud waa la soo daayay maalinkii xigay, isagoo niyad jabsan ayuu nala soo degay guriga. waxaa lagu ballamay in la sugo maamada oo hal mar qur'aan xoog lagu wada aqriyo guriga iyo dadka ku nool oo dhan. laakiin waxaa hubaal ah in dhulkii geerashka ahaa iyo gurigii dabaq sugaha ahaa midna uusan gacanta reerka ku jirin. waxaa dhab ah hadalkii uu adeer habeenkii igu yiri ee ahaa Maxamuud waxaa hadda haystaa wax ka sii daran ayaa sugaya. muxuu go'aankeena u dambeeyay noqonayaa? sidee noo qanciyay Maxamuud? muxuu xikaas iigu sheegi doonaa gurigii lagu muransanaa ee gabadhu iga gashay? qisadaydan weji noocee ah ayuu noqday dhammaadkeeda? waa qisadaydan curad oo qof walba oo la socday bari doonta in adigoo aan waxba galabsan aad noqon karta dulmane, ay noloshiisa u diidaan kuwo aanay hanti, siyaasad iyo aqoon gaar ahba idinka dhaxayn. haddana waxyaabaha hoos u dhigay halisihii la ila wada damacsanaa ee uu garan waayay xikaas waa siro muhiim ah oo aad qaybta u dambaysay ee noo harsan qisada ku heli doontaan. saaxiib, intaas inoo joogto qaybta 13 ee qisada curad. la soco qaybta 14 berri xilligan oo kale insha Allah. ramadaan wanaagsan.